wanaagsan ilaahay baan ka baryayaa wixii khayr leh inuu ina siiyo wixii shara adduun iyo aakhiraba inuu inaga badbaadiyo balaayooyinka su-aalihii aad soo dirteen ayaynu insha allahu tacaala ka jawaabi doonaa markaa su-aalaha cibaadada haddii aynu ka horeyno inan baa waxay leedahay waxba magacyada muhiim aha inaynu sheegnee 5 sannadood maan tukanin anigoo dee qof weyn oo qaangaadha ah maxaa laygu leeyahay haddii la idhaahdo qofkan islaamnimadiiba ku jira xeradii islaamnimada oo qowlkay culimmadu u badnaayeen la qaato waana kaynu rajaxaynee macnaheedu markaa waxa weeye in salaadii lagu leeyahay 5 sannadood markaa waa inaad kolba intaad haleesho sidaa usoo wado waa dayn ilaahay daynta bani aadamka sida qofka looga doonayo ayuunbaa soomka salaada xajka sekada intaaba looga doonayaa qofkii ay ku baaqdeena muslimka ahaa su-aasha labaad waxay leedahay xamaamka ma lagu weysaysan karaa iyada oo qofku aanu dhar xidhnayn weysadu si xamaamka dhexdiisa ma ku ansaxaysaa weysadu waxay la mid tahay arrintaa su-aashu ay ka timi marka la eego maydhashadu bay la mid tahay oo weysada iyo maydhashadu waa israacaa marka maadaamaad xamaamkii ku dhex maydhan karayso adiga oo aan dhar xidhnayn waad ku dhex weysaysan karaysaa adigoo aan dhar xidhnayn mar haddii dee xamaamkaagii daakhiliga ahaa ee gaarkaa aad ku jirto weysadii baad horreysiinaysaa maydhigiina waad raacinaysaa siduu nebiga hadyigiisu ama dhaqankiisu aha ama maydhigii baad dhammaystiraysaa weysadiina waad raacinaysaa hadduu maydhigu maydhi farala yahayna sida kii jinaabadoo kale weysadii waad ku dhex dari kartaa marka waxba uma baahna oo shuruudaha ansixiddeeda kuma jirto inuu qofku asturan yahay qaybta labaad iyaduna xamaamka ma lagu weysaysan karaa hadduu nadiif yahay haa oo wasaktaa loo kaaga soo duulaysa aanay jirin su-aasha saddexaad waxa ay leedahay soomkii bisha ramadaan hadduu bil ka badnaa sidaan usoo qalleeyaa sidaad kartaabaad usoo qallaynaysa mar haddii bil ka badan lagugu leeya soom qallo ah oo waajib ah macnaheedu waxa weeye kolba qayb baad soo qallayn 5 10 oo nebiga sala allahu calayh wasalam xaasaskiisu qaar ka midii sida caaisha oo kale waxay soo qallayn jireen bishan shacbaan ee ramadaan ka horeysa iminka aynu ku jirno ayay soo qallayn jireen markaa qalluhu waa dayn ilaahay saynu horeba usoo sheegnay inuu qofkiina ilaawo oo uu iska dhaafo maaha sidaa daraaddeed inta maalmoodee lagugu lahaa kol haddaad qallayn karayso soo qalleen ilaahay baa wuxu uhi waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar aayaadka soomka ka hadlaya suuratu lbaqara ayaa ilaahay wuxuu ku uhi qofka bishii socdaal ku jira ramadaan dhexdeedii ama bukaana ha iska cunaha soo qalleeya maalmihii dhaafa in la eg marka qallahaasi bilba ha ka badnaadee wayna soo qallayso su-aasha afraad waxay leedahay ruuxa dumarka ahi haddii ilmuhu uu ka soo dhaco sidee bay u tukanaysaa salaaddii waxay tukanaysaa markay dhiigga dhalmada ka daahirto dhiiggii dhalmada haddii maala dhiciskani uu yahay dhicis dee roon oo 2 bilood iyo ka badana dhiiggaa isagii markuu ka go-o ayuunbay salaadii soo bilaabaysa hadduu 3 bilood iyo wixii ka badan yahay ilmahaas hadduu 3 bilood ka yar yahay oo dee wasladii iyo dhiiggii iyo waxyaabaha uu yahay dhiigga ka soconaya waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay damulfasaad dhiiggii dhabar furanka oo kale markaa ruuxii dumarka ahayd iyadoo dhiiggaasi soconayo mar hadduu ilmuhu wax yar ahaa ayay iska tukanaysaa intay salaad walba u istijooto oo ay u weysaysato marka labadaa xaaladood buu ilmihii u qeybsan yahay hadduu ilmihii weynaaday oo 3 bilood iyo ka badan uu yahay dhiigga ka imanaya waa dhiiggii dhalmadoo kale markaa kolkay kaa ka daahirtay salaaddii bilaabi haddii uu ka yar yahay 2 bilood 1 bil waxa uu yahayna dhiigga ka soconaya waa dhiiggii dhabar furanka oo kale markaa salaaddii u joojin maysee mar walba way dahaaro qaadanuun
su-aashan cibaadaadka la xidhiidha ee shanaad waxa ay leedahay muxuu noqonayaa arrinkiisu qofka salaaddii mararka qaarkood iskaga tegaya ama dib dhigaya isaga oo ku marmarsoonaya casharaan dhiganaya ama camal iyo shaqan ku jiraa macnaha cudurdaar ma u leeyahay qofkaas inuu salaaddii ama ka tago ama wakhtigeediiba ka dib dhigo ma cudurdaaru ma laha ilaahay baa wuxu uhi subxaanaه wa tacaala ina الصalaaةa kaanat calى اlmuؤminiina kitaaba mawquuta salaadu waa waajib wakhti leh oo mu'miniinta la saaray waana waajib wakhtina way leedahay wakhtigeedana nebigaa inoo cayimay salى اllahu عalayhi wasalam iyadoo malakuljibriilna uu baray oo wakhtiga xaggiisa hore ka dhexe xagga dambe intaba salaaddii wakhti bay leedahay sidaa daraaddeed camalka waa la wadayaa wakhtiga salaadu markuu gaadhana waa in la tukadaa waxbarashadii waa la wadayaa wakhtiga salaadu markuu gaadhana waa in wakhtigeedii lagu beegaa waayo labadaba waxa ka muhiimsan salaada waa xaqii ilaahay xaqi ilaahayna waa awalulxuquuq xuquuqdoo dhan isaga u muhiimsan marka qofku waa inuu muhiim waxaa inuu fahmaa tartiibta iyo siday u kala habaysan yihiin xuquuqdu xaqa ilaahay baa u horeeya marka kaa isaga marnaba laguma safaadayo way dhacdaa dadka qaarkood inay ama ka yaro xishoodaan salaaddii ama waxbarashadaba yaro xeeriyaan laakiin qadarka aad ku tukan karto labada ragcadood ama saddexda ragcadood ama afarta ragcadood ee faralka ah wakhti kooban weeye marka wakhtigaasi ayaad ka faa'iidaysanaysa